bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada dhammaan walaalaha qaaliga ah ee hanilek channel ku xidhan qisada maanta aan inoo hayo waxay ka sheekeynaysaa ammaanada waqti walbaynu joogno ama waqti hore ha ahaato ama hadda ha ahaato ama waqti soo socda ha ahaato muhiim waxa weeyaan ammaanada qofku wuxuu kugu aaminay inaad u ilaalisid inaadad khiyaamaynin qofku aaminay inaadad khiyaameyn qisadeenan waxa weeyaan nin ayaa soo galay dukaan waa yuhuudi dukaankii markuu soo galay ninkii dukaanka iibinayo muslim ninka dukaanka iska leh waa ninka u shaqeeya khamiis sudhnaa meel ayuu ku yidhi waa imise khamiiskani lacagtii buu sheegay wuxuu ku yidhi waxaan ahay musaafir safar ayaa iga tegaya waan degdegsanahay lacagtan wax iga dhin way igu badan tahay markaa ninkii waxoogaa buu ka dhimay wuxuu yidhi intaa in ka badan kaama sii dhimi karo oo waay meesha anigu melihii maadaamaanan meesha lahayn meheradaydii aanay ahayn oo qof aan u shaqeeyo intaa in ka badan kaama dhimi karo ninkii wuxuu yidhi waayahay wuu qaatay khamiiskii hore ayuu ka baxay oo safar ayuu u degdegsanaa dad israacayeen ayuu rabay inuu ka gaadho si aanu uga tegin ninkii sidii buu ku baxay markaa ninkii dukaanka lahaabaa dukaankii kusoo noqday wuxuu weydiiyey ninkii u shaqaynayay garanaya dukaankiisa meelahay wax kale yaalyaalaan wuxuu yidhi khamiiskii halkan sudhnaa meesha gidaarka soo sudhnaa yacni dacaayad ahaan meesha u yaalay miyaad iibisay wuxuu yidhi haa waan iibiyey oo imisaad ku iibisay 1500 dirham baan ku iibiyey ninku wuxuu ku yidhi khamiisku ceeb buu lahaa 1500 khamiiskani umuu qalmin waayo meel buu ceeb ku lahaa maxaad waxaasoo lacaga ugu iibisay meeye hadda ninkii halkuu degan yahay aan ugu taga gurigiisii si aan lacagtiisa ugu caliyo ninkii shaqaalaha wuxuu ku yidhi ninkaa meel kuma sheego oo ma garanayo meeshuu joogo ninkii dukaanka lahaa baa yidhi isaga hadhow inoo iman doona markuu arkay inuu khamiiska uu qaatay uu yahay mid ceeb leh isagaa inoo iman doona markaasaynu lacagtiisa u calinayna wuxuu yidhi maya mudane ninkani nin inoo iman doona maaha waayo wuxuu ahaa musaafir yaman ayuu ku socday safarkiisiina isagoo degdegaya ayuu tegey oo ninkaas waxaan u malaynayaa hadda waabuu tegay goor horuu baxay oo lama heli karo ninkii awrkiisii buu qaatay safarkii ayuu ka daba tegey dadkii baxay ayuu ka daba tegay siduu usii weydiinayay markuu jidka sii socday cid walbuu arko oo usii weydiinayo cid walba lahayd annaga maaha markii dambe dad ayuu kusoo baxay meel fadhiya salaamu calaykum buu ku yidhi salaantii ugumay jawaabin ee waxay ku dhaheen marxaba soo dhawow ayay dhaheen markaa wuxuu gartay inaanay muslimiin ahayn kadibna wuxuu ku yidhi waxaan raadinayay nin yuhuudiya intay qosleen ayay dhaheen annagoo dhan yuhuud ayaanu nahay maxaad u baahneed markaa wuxuu yidhi nin ayaa jira dukaankayga kasoo iibsaday khamiis ninkaas khamiiska uu soo qaatay ceeb ayuu lahaa waxaan rabaa inaan ninkaas arko nin baa istaagay markaa dadkiibu la hadlay wuxuu yidhi yaa kasoo iibsaday khamiis magaalada intaynan kasoo bixin markaa ninbaa meel ku mashquulsanaa ayaa soo baxay wuxuu yidhi aniga ayaa kasoo iibsaday ninkanaa ku rabo ninkii wuu farxay wuxuu yidhi alxamdulilah haddaan ku helay khamiiskii aad kasoo qaadatay dukaankayga ceeb ayuu lahaa wuu yaabay ninkii wuxuu yidhi oo waxba kuma arkin sidaasoo kale ayuu yidhi ninkii ii shaqaynayeyna khamiiska inuu ceeb lahaa war umuu haynin lacagtaadii ayaan kuu soo celinaya ninkii yuhuudigaa wuu yaabay oo waxaad hadda iiga daba timi saxaraha usoo martay inaad lacagtaydii ii celisid haa buu yidhi wixii aad xaq u lahayd inaan ku siiyo ayaan meesha u yimi ayuu yidhi waayo maalinka qiyaame ma raba inaan dembigaaga xambaarto ninkan waan aragnaa hadda qisada qof aan muslin ahayn oo yuhuudiya ayuu intaasoo dhan usoo socday oo uu uga daba yimi suu u siiyo xaqiisii si aanay maalinka qiyaame dembi ugu noqonin innagana maxaa laynooga baahan yahay qof hadduu ina aamino ama qof haddaynu alaab ka iibinayno ama haddii qof alaab inoo dhiibto inaynaan khiyaamaynin muslin hadduu yahay iyo hadduu gaal yahayba qofkii haddaad khiyaamaysid adduunyada laga yaabaaba inuu kasoo kabsado khiyaamadaadii ama uu iska kaa ilaabo
laakiin maalinka qiyaamo adiga maxaa kuu dambeynaya? 2 cisho oo adduunyo la joogo ayaad khiyaamo qof aad khiyaamisay ama aad wax ka dhacday aad ku raaxaysatay, laakiin meel aan laga dhiman doonin u fikir. Maanta shayga keliya aanu shakigu kaaga jirin waa in la dhimanayo, aakhirana la tegaayo. Adduunyada wax walbaad ku samaysid hadday xun yihiin, qiyaamaha waxay kugu noqonayaan dembiyo. laakiin hadday wanaagsan yihiin wax walbaad adduunyada ku samaysid, aakhiro waxay kuu noqonayaan khayr fara badan iyo xasanaad jannadana ku geynaya. Qofka wanaagsani waa qofka ummadda Ilaahay ay ka magan galaan, kaasoon khiyaaminaynin ummadda Ilaahay ama aan sharaftooda meel uga dhacaynin oon ceebeynaynin. Qofka wanaagsani haddaanu awoodin xitaa inuu caawiyo dadka kale, waa qofka ay dadku ka magan galaan afkiisa iyo adinkiisaba. Allah waxaynu ka baryaynaa inuu ina hadeeyo, xaqana ina tuso, ummaddiisu inay naga nabad gashana uu ina waafajiyo. Calaamadaha munaafiqiinta ayay ka mid tahay in qofkii aamina ay khiyaameeyaan. Allah inaga nabadgeliyo, munaafiqiinta inaynu ka mid noqono, Allah naga nabadgeliyo. waa inoo qiso kale cusub ya axbaabi. Wassalaamu calaykum.